السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وان إذن سلام يا سوماليين ميل كستا جوجتان. سلامك بعد ما أنت waxaan rabaa 10 yar oo ku saabsan lana yiraahdo dilaaga maartay dadban. mawduuca waxaa la yiraahdaa dilaaga dadban. waxaan dilaaga dadban oo maartay waxaa la yiraahdaa wax aadan u jeedin oo qori ku haysan, waxaad u jeedid laakiin aan qori ku haysan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. dhammaan waan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan. maanta waxaan rabaa sheeko yar oo inaan uga sheekeeyo ummadda Soomaaliyeed oo aan laftii iga yaabiyey, oo aad iyo aad iga yaabiyey. oo waxaan is iri ummaddu ma waysan ku baraarugsanayn, ma waysan kala jeclayn, oo dadkii oo dhan baa sidaa noqday. runtii aad baan waxa ila noqotay wax la yiraahdo cajaa'ib. sheekada waxaan u baxshay dilaaga dadban baan u baxshay. sheekada waxaa la yiraahdaa dilaaga dadban. walaalayaal, markaad suuqa maraysid, waliba xamar weyne iyo meelahaas markaad maraysid, waxaa arkaysaa dhalinyaro 100 dhalinyaro ah oo 100 odayaal ah oo derbiyada fadhida, oo maaragtay nolol xun oo aad u silac badan ku dhex jira. ayaguna suurtagal ah inay maaragtay isdilaan ama la dilo, ama dad badanba ay halakeeyeen, gabdha hadday ahaan tahay iyo hadday wiilal tahayba ayaguna is halakeeyeen. sababtoo nin alkoolista oo qamro cabaya oo habeenkii oo dhan meesha dayaca yaala, oo maalinkii yaala, oo maaragtay wax uu reebanayo nolol iyo naf, wax uu reebanayo male. cid allaale ciduu ka adag yahay, saqiir ha ahaado, waayeel ha ahaato, oo wax rabo ku sameynaa wax rabo. marka annaguna dadkii bini'aadanka ah, annagoo ah oo dalkan iyo dhulkan ilaahay makana nooga dhigay, baa waxaan ku fiirsanaynaa dad noloshoodii baabah ka dhigay oo dishay, noloshoodii dilay baan ku fiirsanaynaa. dowlad baa ku fiirsanaysa, oo shacabkii baa ku fiirsanaya, oo nooc kasta haddaan nahay waa iska fiirsanaynaa. waxaan la yaabanahay aqligayga, ama markaan fiirshaan waxaan la yaabay, waxaan ma adiga unbaa ka naxay oo maaragtay adiga aad dareemay waxaan inay dhib yihiin, mise ummadda kulama deerto. culumaa joogtaa, ciidan baa jooga, amni dhan baa jira, dowlad dhan baa jirta, haween Soomaaliyeed baa jira. waxa ka naxaya dadkaas ma jiraan. ayaguna ma iska naxayaan, ayagana cid ka naxaysaa ma jirto. waxaa ka sii daran, suuq baa meesha ka furan. nin baa meesha suuq ugu furan yahay, balaayuu ka gadahayaa, kooladu ka gadahayaa, xashiishkuu ka gadahayaa, wuxuu rabo ka gadahayaa. waxaa kaaga sii daran wiil ilmo yaryar, adahoodii bay kasoo dhuumanhayaan, halkaasay imaanhayaan, meeshaasay waxaan ku leeyahay kooladaas dhuuqahayaan, waxay rabaan lagu sameynhayaa. wax ka warqaba iyo maaragtay wax celinhaya midna ma jiraan. haddii aad tiraahdo maanta celi in la xirxiro maahane, xarig lagu xirxiro maahane, wax maaragtay kaa celinhaya iyo wax kaa qabanhaya ma jiraan dadka noocaasa. hadda waaba hadda waxayba noqdeen dad iska caadiyahaba. derbiyada inta lasoo fariisto baa la fadhiyaa, oo baashii xaashiishkii iyo qurunkii lagu cabahayaa, oo saas dadweynihiina u agmarhayaan, oo iska fiirsanaynaa, oo la kala jeclayn. oo ayaguna markay fursad ka helaan, qofkay fursad ka helaan, hadday gabar waalan iska helaan oo fursad ka helaan, hadday maaragtay nin waalan iska helaan, hadday cunug yaroo habaabahaya helaan, waxay fursad ka helaan ayaguna deyn mahayaan, waxay rabaanna ku sameynayaan. sababto qof asagoo naftiisii eber noqday oo baaba'day, oo naftiisii dhaadhacday, oo naftiisii waxay rabtayba ay maaragtay ay nolol bahaysan, adigana muxuu kuu sameynayaa? marka waxaan la yaabanahay marka Soomaalidan, dadkan Soomaaliyeed
waxaan fiirsanayaan la yaabana soomaaliye ma waana naxayn ma waana iska naxayn ma waana sharafteena dhowranayn kolleyba waxaa la yidhi qofku markuu ka naxo qofka walaalkiisa dhibaatada walaalkiisa haysata markuu arko ka naxo ba asagana ilaahay u naxariisanaya si anaga alla noogu naxariisanaya haddaan dadka noocaana waayeelay leeyihiin caruur bay leeyihiin rag waaweyn bay leeyihiin noocaana anagu haddaan u talin dowlad baa sheeganaynaaye weliba dhinaca dowladda aysan dowladda u talin oo dadkan inta la xirxiro oo la kaxeeyo oo ama la xabiso ama maaragtay meel dhaqan celina aan la geyn waxaan ku iri Soomaalidu 100% bay imaanaysaa sababta ayaga tahlukeynaya cunug yaro meel iska marhayaan arkayaan dhabbay siinayaan waxay rabaan ku suubinayaan alkooladay siinayaan gabdhihii waa la xareynayaan meesha inta waxa la rabo lagu sameeyaa alkool la siiyaa luuq ay iska jiraan luuqaas ugu adeegayaan wali marka waxa heer gaari doonaa in gabdhihiina ayaguna inta meesha soo fariistaan candadii soo bakooriyaan alkoolista meesha badarka alkoolista ku gadgado meeshaas qamro ku siiyo oo u jeedno bay gaari doonaa sababtoo raggii haddii aan cidka celinaysaan jirin gabadhu maxaa lagu diidaa in ayadana meesha la keeno maxaa lagu diidaa marka waxaan rabaa Soomaali weynay walaalayaal haddii aan diin waxa la yiraahdaa aan leenahay oo aan ka cabsanayno diinta islaamka u naxayno islaamnimadeena u naxayno walaa arrintan waxaan rabaa in talaabo xoog laga qaado oo Soomaalidu ka dhidhiso oo ragga meesha fadhiya waa aragtay meel hadda saxafi ka sokeysay iska fadhiyaan ma habeenkii iyo maanta saasay u fadhiya qofkii arkaan waa dafayaan meeshii alkool ku siiraan waxay rabeen ku sameynayaan xamarweyne waa soo dhaafeen wadankii xamarweyne oo dhiiqada lahaa way soo dhaafeen intay ka bateen hadda gobolka si degmad kasta aysan joogin male ilmihii mustaqbalka lahaa oo wax baran lahaa oo haddii ilaahay ku reeyay dadkooda u shaqayn lahaa oo gidi meesha ay soo dhoofteen ayagoo fadhiyaysa u soo dhoofteen cidda dafay ka leeyihiin halkaas isku soo dhoobanayaan ninbaa kalladii ku gadahaya korkooda oo ka beec mushtaraya wuxuu rabo ku dul samaysanaya walaalayaal marka tala ahaan waxaan leeyahay maadaama dad islaam aan nahay waxaan sii arki karna aysan ahayn in beeshi hal kaliya hala sameeyo markii la arko hala tuuriyeeyo meesha laga ceyrsho dadkood guryahoodii ay ku noqon lahaayeen kuwa yareer guryahoodii ba aadinaya haddii si xoog wax loogu qabto dadkan wixii la tuuriyeyn karay wixii meesha la dili karay wixii la ceyrin kara laga dhigo midka tuuga oo qaa'inka ah meesha wax ku gadahayana la garaaco dadkan guryahoodii bay ku noqon lahaayeen meesha ma dhoobnaayeen dadkan waxay meesha la dhooban yihiin annagaan kala jeclayn annagaa tahluuka rabna annagaa caruurteena la tahluukeynaya annagaa raggii la tahluukeynaya marka horteena waxay ku wataan baasha caagaha iskaga cabahayaan gabdhihii bay horteena kula shukaansanayaan walaalayaal marka waxaan dhihi lahaa waxaan nolol nooma aha Soomaali haddaan nahay nolol nooma aha wax fiicanna ma ahan dowladuna mid ka naxaysa waxaan ma ahan dadka wax bartay dadka naxaya waxaan ma ahan nolol xumo iyo sharafnimo xumaan haysee bal inta dib iskugu noqono waxaan aan ka dhiidhino meelaha aan ka cayrino goobaha dadka ay ku ta'allukeynayaan oo fadhiyaan ha laga ceyrsho halla wixii la kala xiri kara halla xiro wixii la geyn karo maartay meelaha lagu dayactirayo meelaha waxa la yiraahdaa meelaha maartay lagu dayactiro ama lagu maartay lagu aruuriyo lagu xanaaneeyo hala geeyo anigu waxaan leeyahay walaalayaal aan u istaagno rag iyo ka dumar waxaan leenahay dadkaas dadkii tahlukeynaya oo ummadii tahlukeynaya walaalayaal aan u istaagno ilaahay aan uga cabsano lacag haddaan lacagaha iskugu aruurino dadkaas hala xirxiro saldhigyada hala geeyo meesha ha laga aruursho wixii laga ceyrin kara ha laga ceyrsho tala kastoo aan ka qaban karno aan ka qabano midda kale dowladdu waa dowlad islaam ah sidaan inay dadka ku fiirsato oo ilmaheena la sii tahlukeynaya ku fiirsato oo qamrada iyo alkoolada ku fiirsato wax fiican maahan Soomaaliyay sidaan wax fiican maahan sidaan aan ka dhiidhino sidaan aan dadkan aan hadeel ku reehay tahluukoobay caruurtii tahluukeeyay dadkii waaweynaa tahluukeeyay
boqolaal rag baa hadda hawadii kasoo baxay, hawaday ka baxeen, goboladii dhamma degmooyinka dhan bay ku biireen, way fadhiyaan, naagaha waa qabsanhayaan, wax allaale waxay rabaan samaynhayaan, ayagoo ragaha waxay rabaan isku samaynhayaan. Marka sidaan talo nooma ahan. oo weliba dadka waxaan leeyahay dhalinyarta wax fahmahaya oo maaragtay dalka iyo dadkaba beri ay u aayhaya, walaalayaal arrintan aan ka dhiidhino, lacagaha la isku aruursho, ula inta qaatay ha la dhaco, caruuraha ha lagu diro, guryahooda ha aadeen, luuqyadooda ha galeen, jidadka hadda lasoo fariistay, dariiqyada laska soo fariistay